buurta Everest waa buurta ugu dheer caalamka waxayna ku taalaa xadka u dhaxeeya Nepal iyo gobolka Tibet ee Shiinaha. Dowladda Nepal waxay maamushaa dhinaca koonfureed waxayna bixisaa ruqsadaha fuulista buurtan iyadoona lacag badan ka samaysa. Dowladda Shiinaha iyaduna waxay maamushaa dhinaca waqooyi mana u bixiso ruqsadda sida Nepal oo kale oo waa ay xadidaa tirada fuulayaasha. buurtan dhererkeedu wuxuu gaarayaa wax ka badan 8 kilomitir waxaana markii ugu horeysay si rasmi ah loo cabiray 1856 markaas uu Ingiriisku xukumayay Hindiya waxaana la siiyay magaca Peak 15. sanadkii 1865 waxaa loo bixiyay magaca Everest waxaana loogu magac daray George Everest oo ahaa sarkaal u dhashay Ingiriiska oo qaabilsanaa sahminta Hindiya. dadka deegaanka ee Nepal waxay buurtan ugu yeeraan Sagarmatha taasoo la macno ah hooyada samada, halka dadka Tibet ee dalka Shiinaha ugu yeeraan Sihomoluma taasoo la macno ah hooyada quruxda badan. sanadkii 1953 Tenzin Norgay oo ka soo jeeda dalka Nepal iyo Edmund Hillary oo isna ka soo jeeda New Zealand ayaa noqdeen dadkii ugu horeeyay ee si rasmi ah u gaara dusha sare ee Everest. tan iyo markaasna waxaa jiraan kumanaan qof oo isku dayay inay fuulaan buurta, qaar badan oo ka midana waa ay geeriyoodeen. waxyaabaha aadka u adkeeya in la fuulo halka ugu sareysa ee buurtan waxaa ka mid ah xaaladaha cimilada Everest aad bay u adag tahay, heerkulkeeduna wuxuu hoos uga dhici karaa -60°C. halka sare ee buurtanna waxaa ka jirta neefqabad daran sababtoo ah hawada ayaa aad ugu yar waxaana adag inuu qofka si caadi ah u neefsado. sidoo kale dadka fuula buurtan qataraha ay wajahaan waxaa ka mid ah barafka jilicsan ee qarsoon ee aan la isku haleyn karin kaasoona geerida u soo dedejiya kuwa wacadka ku mara inay gaaraan halka ugu sareysa ee buurtan. buurtan waxay leedahay aag ka duwan aagaga kale, waa aagga dhimashada death zone. waa qaybta ugu sareysa ee buurta Everest oo ka bilaabanta 8 kilomitir iyo wixii ka sareeya. aagana waxaa lagu gartaa heerka oksijiinka oo aad u hooseeya, cimilada daran iyo xaalado halis gelin kara nolosha qofka. sababta loogu yeero aagga dhimashada waa in jirka bini'aadamku uu si dabiici ah ugu sii noolaan karin muddo dheer isagoo aan helin oksijiin dheeraad ah. aagga dhimashada heerka oksijiinka ee hawada wuxuu ka hooseeyaa 30% marka la barbar dhigo heerka caadiga ah. jirka qofkana si tartiib ah ayuu u baaba'aa xitaa haddii uu joogo 1 saac, waxaana soo wajahaya xaaladda loo yaqaano hypoxia ee qofka unugyadiisu ku yaraanayaan oksijiinka taasoona keenta wareer, maqnaansho maskaxeed, arag xumo iyo xitaa miyir beelid. aagga dhimashada heerkulku wuxuu gaari karaa -60°C taasoona halis ku ah jirka bini'aadamka, halka dabaylaha aadka u xooggan ee aaggaana ay halkii saac gaari karaan 200 kilomitir. buurta ayayna ka tuuri karaan dabaylahan dadka. qofka aaggan marka uu marayo waxaa siri karaa baraf jilicsan oo u horseedi karaa inuu ku dhaco boholaha baraf ee buurtan ee loo yaqaan crevices. dhagaxyada laalaada ayaa sidoo kale khatar ah, gaar ahaan marka barafku dhalaalo. aagga dhimashada awoodda jirka ayaa hoos u dhacda waxaana dadka ku adkaataa inay tallaabo qaadaan, wuxuuna daalka badan keenaa inay dadka qaarkood halkan ku nagaadaan kadibna ay sidaasi ku dhadhamiyaan geerida. dadka fuulaya buurtan waxaa lagula taliyaa inay aagga dhimashada ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga gudbaan wax badanna aysan ku nagaan, isla markaana adeegsadaan oksijiin dheeraad ah maadaama dadka badankoodu aysan si dabiici ah u neefsan karin kolka ay marayaan aagga dhimashada. tan iyo markii la bilaabay fuulista Everest in ka badan 300 oo qof ayaa ku geeriyootay, waxaana aad u adag in meedadka laga soo qaado aagga dhimashada xaaladaha adag ee ka jira awgeed. waxaa la sheegaa in buurta Everest ay yaalaan in ka badan 200 meed oo aan weli laga soo qaadin, kuwaasoo weli qalfooftoodu taalo dariiqa ay sii maraan dadka isku taxaluujiya inay gaaraan halka ugu sareysa. bilaha May iyo October waa xilliyada fuulayaasha ugu badan isku dayaan inay gaaraan dusha sare, balse sidoo kale waa xilliga buurtan laga soo tabiyo dhimashada ugu badan. dad badan oo caan ah ayaa buurtan ku geeriyoodeen, qaar xitaa meedkooda markii hore waa la waayay, sida George Mallory oo 1924 isku dayay inuu buurtan fuulo, waxaana meedkiisa la helay 1999. wuxuuna ahaa nin Ingiriis ah oo caan ku ahaa fuulidda meelaha sare, waxaana ilaa maanta laga doodayaa inuu gaaray halka ugu sareysa buurta
iyo in meel dhexe uu ku geeriyooday. xitaa waxaa buurtan ku geeriyoodeen dad si weyn u garanayay oo hagayaal ahaa sida Rob Hall oo ahaa haga ka soo jeeda New Zealand iyo Scott Fisher oo isna ka soo jeeday Mareykanka. labaduba waxay ku geeriyoodeen musiibadii 1996 oo ah mid ka mid ah dhacdooyinka ugu dhimashada badan ee buurtan. dhacdadan waxaa sababay roob xooggan oo baraf wata, dabaylo daran iyo qaladaad la xiriira qorsheynta safarka. waxaana musiibadan laga sameeyay filimka Everest ee soo baxay 2015. dadka ku dhintay buurtan waxaa ka mid ah David Sharp oo ahaa buurfuule Ingiriis ah oo isku dayay inuu kaligiis fuulo buurta 2006. meel u dhow halka ugu sareysa buurta ayuu gabaad ka dhigtay oo uu dhaafi waayay, wuxuuna dhintay asigoo aan caawinaad ka helin buurfuulayaal arkay xaaladiisa. waxayna geeridiisa dhalisay dood weyn oo ku saabsan in buurfuulayaashu is caawiyaan iyo inay diiradda saaraan kaliya gaaritaanka dusha sare ee buurta, qofnana uusan isku taxallujin badbaadinta qof kale. shakhsiga tiigsada halka ugu sareysa buurta isla markaana ka dhabeeya riyadiisa, taasi macnaheedu ma aha inuu nabad ku soo noqonayo, oo waxaa laga yaabaa geeridii uu ka badbaaday markii uu fuulayay buurta inuu la kulmo marka uu soo degayo. sida qabsatay Francis Arsenchief oo noqotay haweeneydii ugu horeysay ee Mareykan ah ee dusha sare ee buurtan gaarta iyadoo aan adeegsan wax oksijiin dheeri ah. soo laabashadeeda ayay la kulantay dhibaato xooggan. ninkeeda oo ay kala lumeen ayaana isku dayay inuu raadiyo iyada oo uu laabto, laakiin ugu dambeyn labadooduba waa ay geeriyoodeen. meedadka qaar ee yaala aagga dhimashada waxay noqdeen astaan ay dadka buurtan fuulaya sahansadaan, sida meedka loo yaqaano kabaha cagaaran oo ah meedka nin Hindi ah oo ku dhintay musiibadii 1996. sanadkii la soo dhaafay waxaa buurtan ku geeriyooday buurfuula caan ah oo Kenyaan ah oo lagu magacaabo Joshua kadib markii uu ku dhacay god barafa asiga iyo hagihii waday, mana uusan wadan wax oksijiin dheeri ah. rikoorada laga diiwaan geliyay buurtan marka la eego inta badan waxaa loo diiwaan geliyay dad ka soo jeeda dalka Nepal. dalka kale ee buurtan la wadaaga ee Shiinahana rikooro macno leh kama uusan dhigin buurtan. shakhsiga tirada ugu badan ku guuleystay inuu gaaro dusha sare ee buurta wuxuu ka soo jeedaa Nepal, waa Kamirita oo 30 jeer gaaray halka ugu sareysa. qofkii ugu daada weynaa ee Everest fuula waa Yushiro Mira oo dalka Japan u dhashay, wuxuuna halka ugu sareysa gaaray asigoo 80 jir ah 2013. middan cagsigeedana qofkii ugu daada yaraa ee buurtan fuulay waa Jordan Romero oo u dhashay Mareykanka, asigoo 13 jir ah ayuuna rikoorkan dhigay sanadkii 2010. waxaa jiraan dad badan oo naafa ah oo rikooro ka dhigay buurta Everest. qaar ka mid ah waxay ahaayeen lugu la'aan ama gacmo la'aan, halka qaar kalena ay la daala dhacayeen indha la'aan ama xanuuno kale. qofkii ugu horeeyay ee labada lugood ka go'an ee fuulay dusha sare ee buurtan waa Mark Engels oo u dhashay New Zealand, waxayna riyadiisu u suurto gashay 2006. buurta halista ah boqolaalka qofna ku geeriyoodeen waxaa halkeeda ugu sareysa gaaray shakhsi aragala oo aan waxba arkin, waa Eric Wyman. waa qofkii ugu horeeyay ee indha la'aan ah ee gaaray dusha sare ee Everest 2001 ayuuna xaqiijiyay arrinkan. buurta Everest ee ah midda ugu dheer caalamka wax dad ah kuma noola, laakiin agagaarka buurtan waxaa ku nool dadka loo yaqaano Sherpa ee ah qabiilka ugu caansan ee ku nool buuraha xiriirsan ee Himalayas, gaar ahaan dalka Nepal. waxay caan ku yihiin inay noqdaan kuwa haga dadka doonaya in ay xaqiijiyaan hadafkooda gaaridda dusha sare ee buurta Everest. dadka ayay horkacaan iyagoo xitaa ku caawiya inay dusha ku xambaaraan. deegaan rasmi ah oo ka jira buurta Everest ma jiro, laakiin waxaa laga helaa kaamam ku yaala labada dhinac ay kala xukumaan Nepal iyo Shiinaha. kaamamkaas waxaa si ku meel gaar ah u isticmaala fuulayaal, cilmi baarayaal iyo shaqaalaha taageerada bixiya xilliyada la fuulayo buurta.